Xaaladda Bilaal Bulshaawi iyo sidoo kale caafimaad qabkiisa waxaa jira dad badan oo aad ugu wareereen isla markaana aad uga walaacsanaa xanuunka. Bilaal Bulshaawi hooyadiis agoonnimana ku soo korshay garabkayga u ahaay waxaana ku dhalay burburka waqtiga burburka Barqura kooxahan aan la garanaynin ay ku dhaawaceen. Bilaal waxa uu ka mid yahay dadka caanka ka ah barta TikTok-ga, khaasatan aadna looga yaqaano guud ahaan social media. Inkastoo uu yahay nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon, isla markaana waxyaabo badan ku soo bandhigi jiray oo madadaalo ah, haddana Bilaal waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aadka loogu jecel yahay barta TikTok-ga, khaasatan kuwa muddooyinkii dambe aad u caawinayay bulshada Soomaaliyeed, kuwaasi oo waxyaabo kala duwan u soo bandhigayay. Hadda walaalkeen Bilaal Bulshaawi aad ayuu caafimaadkiisa u dhammaystiran yahay. Dhowaan ayuuse ballan qaaday inuu muuqaal soo fadhiisan doono, isla markaana uu hadli doono. Bilaal Bulshaawi waxa uu sheegay inuu dhammaan u mahadcelinayo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kuwii aadka u jeclaa. Walaalaha Soomaalida ee halkan ku xiran ayaan jeclaysanay inaan la wadaagno xogtan maadaama ay aad ugu wareereen halkay ku dambaysa caafimaad qabkiisa iyo sidoo kale Bilaal Bulshaawi oo muddooyinkan dambe aanan war iyo wacaalba laga haynin. Muqdisho ayuu ku jiraa isbitaal ku yaal, caafimaadkiisuna waa mid soo hagaagay, Allane waxa uu siiyay caafimaad dhammaystiran. Walaalaha muxsiniinta oo dhan ayaa u duceeyeen, Alla waa u aqbalay. Walaalkiisa oo marse horaantiisii hadlaya ayaa waxa uu yidhi, Bilaal hooyadiis ayaa u duceysay, dadkoo dhanna way u duceeyeen, wuxuu ahaa mid duco qaba ah. Wuxuuse yidhi Bilaal Bulshaawi wuxuu ahaa mid sadaqa bixin badan, isla markaana caawiya dadka danta yar, kuwaasi oo dhammaantood samafalihii dhalinyarada markay maqleen, midkii biyaha siin jiray iyo sidoo kale midkii caawin jiray ee dhalinyarada ahaa, markay maqleen dhaawiciisa aad ayay dhammaantood ula dareemeen xanuun badan, isla markaana dad badan oo gobollada degan iyo sidoo kale guud ahaan Soomaaliya inteeda kala duwan ee caasimadda Muqdisho ayaa u duceeyeen. Ducadii ayaa Alla u aqbalay. Hooyadiisna waxay tiri waa duco qabo oo aanan waxba iga diidin. Sidaa daraaddeed, Bilaal Bulshaawi ayaa hadda laga warsugayaa inuu muuqaal iska soo duubo, isla markaana kooxihii ka dambeeyay dhacdadan oo la wadaago ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Bilaal, intaan iyo in kasii wanaagsan ayaan kuu rajaynaynaa walaal. Oo ku baryaa walaal muuqaalkan like saar, sidoo kale qaybta hoose noogu reeb iyo weliba subscribe.